بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا سوما اي تي توتورياليس iyo cashirkii 25aad ee C++ ka cashirkan 25aad waxaan ku soo qaadan doonaa haddii aad idmo structure-kii aan soo qaadanay iyo pointer-kii ugu dambeeyay oo aan soo qaadanay oo la isla isticmaalayo pointer-ka waxaan ka soo hadalnay cashirkii 24aad waxaan soo sheegnay pointer-ka inuu yahay variable haya address-ka variable kale isla markaana markaas access gareyn kara daatada variable-ka address-kiisa uu hayo ayuu access ku sameyn karaa oo isticmaali karaa structure-ka markii aan ka hadlayna pointer ma la isticmaali karaa yes waa la isticmaali karaa cashirkiisa ayaan hadda qoraynaa marka waa bilaabeynaa structure si fiican hor waxaan ugu soo sharaxnay casharadii hore marka muxuu ahaa waxaan dhawaa fahansantiin hadda aqri doon haddii alidmo waxaan qaadanaa haddii alidmo student oo muxuu ahaa daatadiisa ayaan qaadanaynaa waxaan leenahay tusaale ahaan oo kale student roll number-ka geli magaciisa string ayaan u qaadanaynaa waxaan leenahay string name kabacdi chorus-ka ardayga u dhigto dabcan chorus-kana waa string laakiin laba qaab u qoraynaa string-ki laba qaab loo qori karaa qaabkan waa loo qori karaa oo array of characters ahana u qaadan kartaa character oo xaraf ah usoo qaadanaysaa marka array ahana u qaadanaysaa string ay noqonaysaa 20 xaraf ayaa isticmaali karaa leeyahay idana sidoo kale string-gi waa loo declare gareyn karaa waxaan soo qaadanaynaa marka maadaama marka aan soo definition gareynay structure-kii waxaan isticmaalaynaa structure variable si aan u isticmaalno daatadan structure variable waxaan soo qaadanaynaa structure optional C++ marka la joogo magaca structure-ka soo qaadanaynaa iyo variable-ka aan rabnay inaan ku isticmaalno aniga waxaan qaadanaa s ayaan waxa u qaadanaa variable-ka aan ku isticmaalayno muxuu ahaa structure-ka sidoo kale waxaan declare gareynaa pointer variable oo u qaadanayno ptr waa pointer variable oo structure ah si fiican ula soco labadan variable ptr iyo s laba variable waaye waana structure variable laakiin maxay isdheer yihiin sta waa normal variable ptr kaasna waa pointer variable waaye marka sidee maxaan ku isticmaal rabaa ptr ka waxaan ku keydinaynaa address-ka waxaan ku keydinaynaa s ayaan ku keydinaynaa address-ka s waxa inoo haysa marka ptr inoo haysa sidaas daraadeeda maadaama aan address-kii structure variable hayno ptr waxay directly pointer ahaan waxay u access gareyn kartaa roll number-ka name-ka iyo course-ka tusaale aan sameyno waxaa leenahay cout ayaan leenahay daatadaan gelinaynaa inter waxaa leenahay student roll number-ka geli okay si loo kala fahmo siin ayaa leenahay roll number-ki ayaa la gelinaa roll number-ka sidee loo gelinaa waa su-aal marka ptr waa pointer variable s-tan waa variable normal address-ka s waxaa ku wareejisay ptr sidaas daraadeed ptr waa pointer variable waxay access gareyn kartaa muxuu ahaa daatada ku jirto structure-ka laakiin qaabkay u access gareyn karto ayaan muxuu ahaa qaab cusub yaroo muxuu ahaa wax badanna ma cusbo waxaa kugu cusub keliya arrow operator waxa la dhaho oo calaamadan minuska south qanida ama dashta ama hyphen-ka oo ay la socoto greater than calaamada labadan isla socoto waa arrow operator la dhahaa pointer-ka ay isticmaalo markuu access gareynayo structure-ka daatadiisa marka structure-ka hadda pointer arrow operator-ka iyo ptr markaa soo qaadatid daatada uu tilmaamaya sheegaysaa marka row number-ka uu tilmaamaya leenahay cout ayaa haddana leenahay wuxuu qaadanaa tusaale ahaan oo kale waxaa gelisaa student name-ka geli student name-ka markii aad gelinaysid marka in iyadana ptr soo qaadanaya ptr waa pointer variable la soco dabcan marka calaamadan isticmaalaysidna pointer-kaas ma isticmaalaysid muxuu ahaa arrow operator-kaas muxuu ahaa ku tilmaamaysa maadaama address-ku u haayo arrow operator ayaa leeyahay name-ka ayaa tilmaamaa marka cout ayaan leeyahay waxaan leeyahay haddana last-ga inaan gelino inter waxaa gelisaa course-da geli in ayaan leenahay course-dii ayaan gelinaynaa course-da ptr ayaan soo qaadanaynaa waxaan leenahay arrow operator course ay tilmaamaysaa daatada hadda waa qaadanay user-ka waan ka qaadanay okay sidee usoo bandhigaynaa marka tan ayaan waxaan u qaadanaynaa inaan lane u sameyno sidee nooga kala dhex gasho user-ka mid daatada uu gelinayo mid lasoo bandhigayo cout ayaan leenahay waxaa lasoo bandhigaa dabcan ptr-ka ayaa soo qaadanaysaa waxaa leedahay roll number cout-ka underline markii inaan u sameyno waaye
si ay u kala socmaan cout ayaan leenahay ptr-ka ayaa soo qaadanaynaa waxaan tilmaamaynaa name-ka cout ayaan haddana leenahay ptr-ka ayaan soo qaadanaynaa oo pointer-ka ah arrow operator-ka waxaan tilmaamaynaa haddana course-ga ayaan tilmaamaynaa okay saddexdan marka waa soo bandhignay datada hadda uu programkeena waxaa leenahay compile wax cilada miyaa ku jirta maya programkeena run ayaan leenahay datada ayaana la weydiiyay inaan gelino student row numberka tusaale ahaan 4 iska dheh magaciisa cabdi iska dheh course-ga waxaan iska leenahay ka soo qaado kale english ayaan leenahay for abdi english dabcan abdi english leen cusub looma sameynin muxuu ahaa meeshaan endline ku dirin saas daraadeed uu isku daray marka laakiin natiijada noo soo saaray marka aan sameyno endline aan u raacino dan endline aan raacinayna marka qaabkan ayaa pointer waxa uu isticmaali kartaa structure-ka ayaa uu isticmaali kartaa waxyaabaha u baahan tahay marka pointer aad isticmaalayso structure aad u isticmaalayso waxaa kamid ah arrow operator-kaas inaad ku access garaysid datadii structure-ka laakiin inaad structure-kaas access garaysid pointer oo heshid waxaa marka hore ka sokeeyo in aad variable-ka oo pointer-ka ah oo normal variable-ka ah address-kiisa aad ku wareejisid pointer variable-ka oo structure variable ah saas daraadeed wuxuu access gareyn karaa marka su-aal marka waxay taagan tahay haddii aan rabo inaan isticmaalo tusaale ahaan oo kale pointer-ka waxaan ogeyn markii value uu tilmaamayo waxaan qaadinaynaa calaamadaas dereference-ga hore usoo sheegnay dereference haddii aad qaadatid oo tirahdid calaamadan pointer-ka ku isticmaal haddii aad tirahdid arrow operator-kaas uu kaa diidaa marka saa ujeedidba arrow operator-ka ma qaato marka maxaa samayn kartaa haddii aad isticmaalaysid calaamadaas pointer-ka ah oo muxuu ahaa calaamada dereference-ga haddaad isticmaalaysid pointer-ka u isticmaalaysid arrow operator-ka iska dhaafay dooda caadiga isticmaalaysaa oo structure-ka ku isticmaalaysid programka hadduu shaqeynaa oh sorry cafwan tan marka gudahaas waxaa laga rabaa inaan isticmaalno bracket inaan isticmaalna ayaa nagala rabaa hadda marka uu shaqeynaa bracket-kaas ayaa dhex gelinaysaa pointer-ka si uu tilmaamo programka haddii aan geli sidoo kale aan dhahno kale muxuu ahaa 5 haddii aan dhahno kale ali aan gelino maadadana wax una iska gelino daatadii waa arkaynaa si ujeedada waa la soo bandhigaa marka pointer-ka qaabkan ayaa waxa ugu isticmaali kartaa muxuu ahaa arrow operator adoo isticmaalaya ama isticmaalayo pointer-ka dereference-giisa oo bracket-ka muxuu ahaa soo gelinaysid kabacdi dooda isticmaalaysid su-aal waxay ka taagan tahay marka haddii aad rabtid tusaale kasoo qaad array of structure haddii aad rabtid oo kale oo 3 structure 4 student oo kale magacooda aad record garaynaysid pointer-kan aad isticmaalaysid maxaa sameynaysaa dabcan structure-ka hore waan kusoo qaadanay tusaale 3 arday markaa gelinayno qaabkan aan soo sheegay hadda hadda qaabkan ka tiraahid programkaaga wuxuu noqonayaa marka in structure-kina pointer-kina aad ka dhigtid pointer of an array of pointers inaad ka dhigtid oo tiraahid bracket-ka inta kusoo xirtid dabcan array of pointer ha ku wareerin programkan tusaale ahaan ugu fahan anaga cashir goori ka sameynayno sidan ayaan u declare garanaynaa iyadana marka array of pointers marka si arraydan marka 3 mar loo geliyo datada oo datadan 3 mar loo soo celiyo waxaan u baahanahay inaan dhex gelino for loop waxaan leenahay for ayaan leenahay integer I ayaan soo qaadanaynaa waxay la mid tahay 0 I waxay ka yar tahay leenahay 3 I waxay noqonaysaa plus plus okay datada inta ayaan dhex dhigaynaa marka si macnaha inta 3 mar loo datada loo geliyo datada marka si 3 mar loo geliyo ku soconaysaa pointer-kan oo sidan ah ayaa waxaad sameynaysaa array-dii ayaa raacinaysaa array of I ayaa tilmaamaysaa mar walba markaas wuxuu tilmaamaa 0 haddii ay tahay 1 haddii ay tahay datada koowaad datada labaad datada saddexaad la gelina kana sidoo kale ka soo dhigaysaa kulli arrow operator-ka ma ku isticmaali kartid markaan arrow operator-ka waa ka reebaysaa si pointer-ka u tilmaamtid calaamadaas isticmaalaysaa arrow operator markaas ma qaadanayo programku ka diida waxaa isticmaalaysaa dot operator ayaa isticmaalaysaa kana sidoo kale waxaa isticmaalaysaa dot operator intana waxaa gelinaysaa bracket ayaa gelinaysaa pointer-ka ayaa tilmaamaysaa bracket-ka ayaa soo xiraysaa array ayaa sii tilmaamaysaa array of pointers oo tilmaamto datadan uu ka qaatay user-ka tanna inaa waxaa la rabaa sidoo kale aad u samaysid for loop-ka oo ah int I is equal to 0 I is less than 3 I plus plus okay inta markaan dhahno idane tan aan soo gelinaynaa gudaha si 3 mar loo soo bandhigo datadii waxaan leenahay gudaha noo soo geli marka ka bacdina waxaan sameynaynaa pointer-kii sidii haddaati aad soo samaysay
ayaad usoo sameynaysaa idin array of ayaad tilmaamaysaa mana isticmaalaysid arrow operator dot ayaa isticmaalaysaa maadaama array of pointer ay isticmaalaysid qaabkan ayaa muxuu ahaa idin usoo gelin kartaa marka waxaa leenahay arrow operatorkana waa tirtireenaa waxaa leenahay dot ayaan ku bedelinaa kanna sidoo kale ayaa kusoo sameynaysaa marka qaabkan waa qaabka ku isticmaali kartid haddii aad rabtid daatada oo muxuu ahaa array ahaan array of structure inaad qaadatid adoo pointer isticmaalaya programkan waxaa leenahay run waxa error aan ku jiro sida ujeedada programka uu shaqeeyay waxaan leenahay compile program compile dheh muxuu ahaa run dheh row number ka geli tusaale row number 1 aan siinayna magaca geli waxaa leenahay abdi kooraska geli waxaan iska leenahay tusaale ahaan oo kale english row number ka mar labaad lagu weydiisaa ujeedada sababtoo ah meeshaan ayaa waxa ay tahay ilaa iyo 3 mar inaad data gelisid row number 3 ayaa gelinay magaca waxaa qaadanay cali subject waxaan iska leenahay biology row number ka saddexaad lagu weydiiyo ardayga saddexaad ah waxaan gelinaynaa 4 ayaan gelinaynaa tusaale magaca ayaa lagu weydiiyay waxaa leenahay tusaale ahaan oo kale Hasan maada geli ayaa dhahay waxaan gelinaynaa physics ayaa soo gaabinaynaa enter markii aan dhahno saddexdii daato ayaa la soo bandhigaa marka 1 row number kii abdi english 3 row number kii ali biology 4 Hasan physics sidii daatada ayaa loo soo bandhigay saddexda mar marka qaabkan waa qaabka aad pointer u isticmaali kartid adoo array of structure isticmaalayo programkan marka waxaan u hadlaynaa ujeedadu waxa ay ahayd sidee pointer loogu isticmaali karaa structure sidee loo isticmaali karaa waxaan sidoo kale kusoo qaadanay qaab kale oo muxuu ahaa array of pointer aad samayn kartid adigoo structure kan array ah marka sidee isku isticmaali kartaa طبعا array of pointers 10 gooni ka sameynayna si aad loogu wareerin meesha ayaan ku sameynaa billahi tawfiiq